السلام عليكم داوديال وبوليموج channel oo aad uga barateen inuu idiin soo gudbiyo markaasi dhacdooyinka taagan kuwooda ugu waaweyn bisha waa 17 bishii afraad 2020 waxaan wadada warkeenu ku bilaabeynaa dalka Mareykanka ayaa sarakac laga soo sheegay dhimashada COVID-19 uu sababayo gobolka New Jersey ayaa waxaa laga helay 17 qof oo laga helay home nursing meel ah oo ay ku xareysnaayeen waxaa kaloo Florida laga soo sheegayaa sidaas oo kale in 7 qof oo iyaguna home nursing ku xareysnaa laga helay haddaba tirada dalka Mareykanka dhimashada u gaaraysa ayaa waxa ay ku dhowdaa 26 qof iyadoo ay sare u sii kacayso maalinta ka dambeysa haddaba dalalka NATO ku bihoobay ee uu midowga Yurub ku jiraan ayaa waxaad moodaa inay wadamadaasi midowga Yurub ee NATO ku jira ay hadda ku baraarugeen sidii ay kaalmo degdeg ugu dir lahaayeen wadamada uu aafeeyay cudurka COVID-19 oo ah wadamadaas ay ku horeeyaan dalka Talyaaniga iyo Spain kuwaas oo aad iyo aad u saameeyay cudurka COVID-19 oo isagoo farabaan ku hayay ilaa haddeer haddaba NATO midowga Yurub ayaa waxa ay diyaariyeen shixnado ama malaayiin tan oo isugu jira dawooyin iyo qalab oo u dirayaan tan oo aad mooday inay la soo daaheen waxaad moodaa dalka China iyo Ruushka inay ahaayeen wadamadii ugu horeeyay ee ka jawaaba ama gargaar degdeg ah u dira dalalkaasi iyadoo NATO aad moodid hadda inay ku baraarugtay iyadoo awal kaalinteedii kabtay taasoo ay ka gaabiyeen amaba ayeen wax gacan oo buuxdo oo muuqata ay ka siin ilaa xilligii COVID-19 ka dilaacay labada dal ee kala ah Spain iyo Talyaaniga oo uu dad aad u badan ku laayay ilaa haddeerna la daalaa dhacaya sidii uga soo kabsan lahaayeen haddaba waxaan kale oo jirta in ciidamadii Australia fadhiyay ee Ingiriisku lahaa dib loo soo celinay taasoo ay ka qayb qaadanayaan xaaladda caafimaad oo la rabo inay wax ka qabtaan gudaha dalka Ingiriiska isagoo Ingiriisku uu ka mid yahay wadamada safka hore kaga jira uu aafeeyay cudurkan COVID-19 waxa ay warbaahintu sheegaysaa madaxweynaha dalka Nicaragua ilaa iyo bishii Febraayo 2020 inaan wax bil ah la saarin amaba aan lagu arag meelaha saxaafadaha taasoo loo maleynayo inuu aafeeyay cudurka COVID-19 ama uu xaaladiisu caafimaad halis ku jirto waxaanu kaloo daawadayaal idiin haynaa dalka Yemen ayaa xaaladda bini'aadanimo ka sii daraysa iyadoo dalkaasi laga soo sheegay COVID-19 ayaa waxa uu dheer colaado aad iyo aad u baahan ayaa waxa laga soo sheegayaa inay wili ka sii jiraan gudaha dalka Yemen taasoo ay aad iyo aad xaaladooda looga soo dayrinayo dalka Imaaraadka ayaa waxa bilaabay hoteelada top 5 starka inuu ka bilaabo baaritaano cudurka COVID-19 iyadoo Imaaraadka dadka uu ku dhacay ilaa hadda la soo sheegay inay 6 kun gaarayaan 28 tiro lagu qiyaasanay halkaas ku dhimatay Imaaraadka ayaa ugu jira dadaal inuu arintaasi xakameeyo waxaa soo shacbaxaya kadib markii dadkii COVID-19 uu ku xareeyay oo guryaha inay xayawaanaadka dibadda u soo baxeen halkan aad u jeedaan waa Hindi oo maroodiyaasha dibadda iskaga soo baxay iyo magaalooyinka Japan iyo Spain oo ay xayawaankii gabi ahaanba banaanka uga soo baxeen xerooyinkooda markii ay waayeen cid quudiya amaba cid haysa amaba sharqantii dadka oo ay awal maqli